ودلقها ديغا امدا شقيا كو امدا ديغا كغنعسدا xogaa ku qaata qandaraas qowda maqashi waxna ha u qaban kuwaas mufsidiin weey mujrimiin weey kuwa dhiiga daadina waa ayaga ilaahi weyna markuu noo nicmeeyay abaartii naga reebay 2 sano barwaaqa israacaday in meeshii la reebay in ilaahi loo shukriyo masaajida la tago duruusa la dhageysto dugsidii quraan oo direesay la soo nooleeyo in abaalkii iyo shukrigii laga dhigo in qabiil la isku laayo wa ilaahi laga abaal ka dhacay qof alla qofka muumina si kasa u dile naarta jahannam abaal u leeyahay waa ku waara ara allah ku dhacday waa nacalaqaba ilaahi naxariistu ka fogeeyay cadaab weyn waa u diyaarsaday haday laba qof oo muslima hubka iskala hor yimaadaan kan la dilo iyo kan wax dilay labaduba waa ahlu naar dadka muslimiinta dhexdooda fasaad ka dhaco waa arin xiirayda ma ahan tinta inay xiiraydo diinkay xiirayda dadka muuminiinta la layna masaajidu waa qaraabayaan dugsidu waa kala tagayaan darisku waa qaxaya qaraabadu waa isgoynayaan gabdhaha waa la kubsanaya musiiba dhacayda qaala ta'ala ila wuxuu wa in ta'ifatani wa in iqtatala haday dagalamaan ta'ifatani laba kooxood labada kooxood oo min almu'miniina mu'miniinta kamid iqtatalu haday dagalamaan فأصلحوا هجاجية بينهما بحدود هشيسية فإن بقد هدي قردر سطوي ديدو هشيسكي إحداهما مدو على الأخرى مدي كلا أيكو قردر سطو فقاتلوا لدقالما التي مدى تبقي قردرا حتى تفيء إلى أي أصول لابانيدو إلى أمر الله أمرك اللي هشيسك إيا وحوي المصالحة انت كأقباليدو فإن فعد هذا صلابته فأصلحوا هشيسي هجاجية بينهما بحدود بالعدل عدالة نكو هشيسي حتى مدي قردر يدها وضحنانين حدينا ما دام يدر قدرنيت حوغا حليس كالا صار حدينينا عدالة كو هشيسي واقصدوا عدالة سمايا ورقين با وح الله واحد ما موليدان عرور تاد اهلكاغا دادك مسلم كادو هشيسين ريدو عداد حكمته واقصدوا عدالة السماية ضدك إن الله إلهي يحب ويجعله المقصدين كوا عدالة السماية إنما وحك لماهن المؤمنون ضدك مؤمنين تاهو إخوة وولاله مؤمنين توا ولاله في الدين أي ولاله كويه فأصلحوا هشيسي وهجاجية بين أخويكم لبدين ولاله بحدود لبدا قبيل لبدا كوحوض يسايستا وولاله هشيسي واتقوا الله إلهي كبقى لعلكم ترحمون لكي ترحموا سيلينكم حريستو آيادان الله سبحانه وتعالى وحو أمريا ضدك المسلمين تابحدوا إذا هدي فتنة كدعضو إن له شيسيو ساسا إلهي المؤمنين تقوى أمرا وواجب وفرض الكفائي haddii dadka gabal u istaagaan dadkaas fitnadu ka dhex dhacday oo heshiisiyaan ajarkana inta heshiisiidaya iska leh inta kale dambiga ka dhaca haddii aan la heshiisiino isdilayaan oo la isku fiirsadana dhammaan inta isku fiirsanayda dambiga wax ku leeyahay waajib weey maahan sunno in dadka la heshiisiyo muslimiinta waa waajib maxaa yeelay dad muslimiina inay dagaalamaan waa arin aad u khatar ah ديق مسلم وهلاك نبينا صوبان صلى الله عليه وسلم سيدو يري سباب المسلم فسوق وقتاله كفر قف مسلم إلا عيا فاسق نما إلا لا دغالمانا وابا كفر با سيرتي إذا النبي صلى الله عليه وسلم مركي حجة الوداع لهد لي الصحابة وكير لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض أنا قالكي قالها الله بنينا لكن كي قالها وعد إسلايدان إسباب إيدان سكتشو غارينتاس ولكن قالها ده لكن مسلم ما هندط إن إسلايان مسلمين ما هندق المسلمين سيدا سراد ده إلهي أقول ديي وعيد يقودي أن قفك للي قودي ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيم قف الله قفك مؤمنا سكس أدله
naarta jahannamo abaal u leeyahay waa ku waara cara allah ku dhacday waana allaqaba ilaahay naxariistu ka fogeeyay cadaab weyn waa u diyaarsaday shaydaanku wuxuu ugu waxyoodaa qabaa'ilka iyo dadka isdilaya waxa weeyaan idinku xaqad ku taagantii man qutila duuna maali fahuwa shahiid man qutila duuna nafsi fahuwa shahiid wadaad xume intaas u sheegana ma waayaan oo ina anagu xaqan ku taagan qolada kala mujrimiin laakiin sidaa saxdu ma ahana saxdu waxay tahay sidii nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam oo idha altaqa almuslimani bisayfayhima falqatil walmaqtul fi an-nar haday laba qof oo muslima hubka iskala hor yimaadaan kan la dilo iyo kan wax dilay labaduba waa ahlu naar kaasay saxaabadu ku yiraahdaan rasuulka ilaahayo waa garanay midka wax dilay wuxuu naar ku mutay hada alqatil wa fahni fama balu almaqtul midka miskiinka isagii la dilay wuxuu naarta ku mutay nabigu muxuu yiri sallallahu alayhi wasallam innahu kana harisan ala qatl saahibi wa lagala hormaray waa laga xoog batay ee asaguba waa ku dadaalay inuu dilo walaalka kale muslimka qofka la dagaalama waa walaalkiis illa waa muslimi waa uu rabay inuu dilo ee waa lagala hormaray halkaas maxaa cadaaday qabaa'ilka dagaalama dadka muslimiinta islaayna kan wax dila iyo kan qalbiga ka niyeysan dadaala waa isku dambi naartay wada leey meelshaas marka meel fasaad weyn ka dhacayo way qabaa'ilka isdilaya fitanta soo cusboonaatay oo hadeer meel walba ka kacday waa arrin nasiib darra ilaahi weyna markuu noo nicmeeyay abaartii naga reebay 2 sano barwaaqa israacaday in meeshii la reebay in ilaahi loo shukriyo masaajidda la tago duruusa la dhageysto dugsidii quraan oo direesay la soo nooleeyo in abaalkii iyo shukrigii laga dhigo in qabiil la isku laayo waa ilaahi oo laga abaal ka dhacay markay sidaas oo kale ay timaadana oo dad nasiib darra ku dhacdo oo dad naar ay shaqaystaan dad liibaano janno ka shaqaysta waa dadka heshiisiye dadkaas liibaana janno markaas oo kale meeshaas ay taal ajar weynu meeshaas u yaal nabigeena suuban sallallahu alayhi wasallam wuxuu tilmaamay dadka muslimiinta oo dagaalama heshiisiinta la heshiisiinaya salaada iyada ka ajar badan soonkana iyada ka ajar badan sadaqadana iyada ka ajar badan abu daawud wuxuu wariyay xadiiska abu darda inuu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam ala ukhbirukum bi afdal min darajati as-siyam was-salati was-sadaqa mawanan in sheegayn wax ka ajar badan darajada soonka salaada iyo sadaqadaba wax ka sareeyo ma in sheega marka saxaabadu yiraahdeen bala ya rasuulallah rasuulka allah inaad noo sheegay warkeeda salada noo sheeg waa muhiim wax darajada salaada ka sareeyo oo soonka ka sareeyo oo sadaqada ka sareeyo rasuulku wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam islaahu dhaatil bayn dadka muslimiinta dhexdooda la heshiisiyo taasa ka sareeyda حاجة النبي وحي صلى الله عليه وسلم وفساد ذات البين هي الحالقة ضدك المسلمين تنحيوا ذا الفساد كبعوا وأرين حيريضا ما هنتنت إني حيريضا دينك حيريضا ضدك المؤمنين تعالى اللينا مساجد وخرابيا دوكسيدوا وكالتغيا درسكوا وقحيا قرابدوا وإسقويريا قبلها والله كبصانيا مصيبة نحيضا مصيبة أن رجلها ينوي ساستراديدا سيد يا امه مدحوا waxa dadka heshiisiye sayidka kaasa nabi gaana ku tilmaamay ma anu inaan ku tilmaamay sayid yaa qofkii dadka heshiisiye ma ahan waxa weeyaan kuwa dhilqaha ee dhiiga umada jaqaya kuwa umada dhiiga ka ganacsada xoogaa ku qaata qandarees way heshiisiinayna waxna aan u qabanayn qowda maqashi waxna ha u qaban kuwaas mufsidiin weey mujrimiin weey kuwa dhiiga daadina waa ayaga بسيني دبك كوسي شوبيان وما ويلينيان وحنا قبان ميان لكن كوا دبتا ee dhextaga ee dhaqaalahooda ku bixiya ee xoogooda ciidankooda ku bixiya ee walaalaha heshiisiya dadka liibaan waa dadkaasana nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam sayyid waa qofkaas bukhari wuxuu wariyay nabigeena suuban sallallahu alayhi wasallam maalmaha kamid asagoo minbarka saaran oo uu la saaran yahay minbarka hasan ibn ali ibn abi talib wuxuu yiri إن ابني هذا سيد ويلكيغاس سيد والله على الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين وحن إلهي كرجينا إلهي لبقى حوض المسلمين ووين
inuu ku heshiisiyo fiiriya sayidnimadu waa ina dadka muslimiinta heshiisiida saas weey maxaa dhacay arrintii nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam sidii u dhacday fitnadii weyneed ee ka dhexdhacday saxaabada Ali ibn Abi Talib iyo Muawiya oo Sham saw ka talinayay iyo Ali oo Iraq iyo dhulkan ka talinayay fitnadii weyneed ee dhiiga badan ku daatay Hasan bin Ali ilaahi sabab uga dhig markaas nabiga calaamaadkii nabinimada ay arrintan ka mid tahay marka saas ilaahay markii Ali ibn Abi Talib ilaahay oofsaday muslimiintii Ali xukumay Hasan ibn Ali ballankii iyo bay'adii la galay Hasan Muawiya inta u tagay yiri muslimiintu laba kooxood oo laba nin kala xukunta noqon maayaan ana ka tanaasulay isku xukun ka waran yay ka suurtowda carruurta ambiyada ay dhaleen ka suurtowda wiilku nabigu ka soo jeeda Fatima binti Rasuulillah ya dhashay soo ma jeedin marka sayid iyo qof qiimo leh ummadana matala waxa qofka dadka heshiisiyo qofkaasana qayr iyo ilaahay weyna qof qayr la doonay waa arrin aad u weyn